kelmadda ah marka hawada Soomaaliya ayaa dadka hub looga dhiganin hawada Soomaaliya waxaan rabnaa in Soomaaliya maamusho definitely gorgortan kuma jirto haddii hadda madaxweyne Farmaajo maamulo bari waxaan rabnaa isagoo sidiisa u maamulo ninka imaanaya isaga ku xigaahay inuu meesheeda ka sii wado oo aan marnaba dalka uusan noqon dal cid doonta ku dhex dusho taasaan ka leeyahay joogaan u saanahay wax kasta wadankan ka dhacay qurba joog ma nihin waxaan xabsi u soo marnay afkaar sharcigu noo ogol yahay oo inay hore shalay ka hadlay dastuurka aad aan ugu faraxsanahay inuu dastuurka la ilaaliyo yiraahdo annagu 40 sano waa sugu joogaan jirnay dastuurka la ilaaliyo walina waa leenahay dawladda hadda jirtana ka yeelimayna dastuurka inaan la ilaalin kuwii horena hadda xabsi aan u galnay dastuurka la ilaaliyo annagoo dhahayna walina waa dhahayna markasta xilli kastoon joognana kuma xirro dawladdaas inaan ambaan jecelnahay ambaan ka tirsanahay waxay ku xiran tahay xuquuqda aan leenahay dastuuriga inaan sheegno waa run xasan waa muwaadin waa madaxweyne hore waa fahmi karaa waana ogahay dad badan inay dhihi doonaan Cabdullaahi waaba iscafiyeen maxaa challenge kale waa run aniga madaxweyne xasan waa iscafinay waxaan iska cafinay intuu xukunka ay dhibaatadu shakhsiyan igu geystay laakiin aragtida siyaasadda iyo wadanka sida laga yeelayo iyo meesha uu aadayo cidda maamulaysa sida loo maamulayo kama inaanayshi isku aragtina kama nihin laakiin wixii intuu xukunka joogay oo dhibaato si shakhsi igu geystay si sharci darro ah walaalkay waa cafiyay waana sidaan ugu cafiyay hadalka ma jiro marka waxaan rabaa dadka inaan isaga darsoomin national issue markaan ka hadlayno xasan soo madaxweynaha ka hadli jirnay hadduu gudoomiye xisbi sidaan oo kale yahay waa ka hadlaynaa hadduu saxan yahay waa ku taageeraynaa hadduu qaldan yahay waa qaldan yahay leen wax nagu qasbaya ma jirto qof aan u aragno inaanay fikir munaasib u wadin baan wax dalka dan ugu jirin wadin inaan madaxa u raaricno dan raaricayno godka jilcu soo marneen waxaan maqlayaa diyaarada la hakiyay oo laga hadlo la diiday annaga antana la soo dagaabana la xiri jiraba aniga ana waxba dalka ka hadlayn oo Nairobi ka imid oo si sharciga wadanka uga baxay ilaan ma tahriibina diyaaradan raacay sitamaana Nairobi joogay haddaan soo noqdana nabad sugidda aeroboortka iga xirtay waa wada ogtiin intiina saxaafadda intay dhageysanaysa godka jilcu baan soo maray maxkamadda dambi ugu weys marka haddii walaalkay xoogo yar oo arinta comment gareeyay wax intuu jooga jiray ahayd laakiin waxaan ku faraxsanahay ma ahayn haddana kuma faraxsan qof Soomaaliya in la caburiyo mana taageerin qofka Soomaaliga wuxuu xaq u leeyahay wadanka meesha uu doono inuu duulo meesha uu doono inuu ka dago dastuurka waa asaas laakiin marnaba national interest-ga ka weyn wax kasta wixii dawladdu markaa ay dawladda iyo dadku ma dagaalami karaan haday dagaalami karaan markii sharci darrada la igu xiray oo tumanjal 4 bilood maxkamad laan oo xabsiga ku jiray BST ayaanu dhilay wariyaa tolay ama xataa waa tunsantiin qoryo waasta aniga u dhaydo waagana xataa waasta haddii qofka xanaga qora qaadana markaasan qaada lahayn ma xanaaqaynay hal saxan laana wixii khaldan oo jira haddii qodobka 22aad iyo 20aad iyo 18aad madaxweyne xasan shalay uu akhriyay annagu waxaan akhrinaynaa 40 sano oo isagu jooga in la madaxweynuhu dastuurka ilaal qodobka 20aad akhri kan 18aad akhri kan 22aad akhri waxaan xusuustaa maalin baan gudoomiye Jawaari ugu tagnay anagoo axsaaba markaasan su'aal waxaan weydiiyay gudoomiye Jawaari dastuurkan yaray horta wadanka midka lagu maamulaa kanaan haysanaa ma mid kala jira ilaa in kan waxna la ku xiri karaahay haddaan fikirkeena sheegno kuma yaalaanay gudoomiye uma dastuur kale oo moognaha jira wax badan oo moogtaa jira ugu gudoomiye Jawaari waxaan moogaynaa asaga ku baxa markii dambe laftirkiisu waa loo adeegsaday marka dastuurka la wada ilaaliyo madaxweynuhu shalay markaad joogtana anagu ilaali baan ku dhahaynay haddana hal wada ilaaliyo waxaan rabaa arinta kiiska Kismaayo waa dhul Soomaaliyeed maamul Soomaaliyeed aad joogay hadda waxa isku haystaa iyadoo dhul Soomaaliyeed waxa isku haystaa saddex nimo ilmaadeera yaa isku haystaa waa dhul Soomaaliyeed ogow waxaan leenahay hal xalliyo barnaamijka Kismaayo qof gaar oo quseeya ma jirto dawladdu haday xal kartaa xal dadka nabadoonnada iyo dadka Soomaaliyeed sharafka leh ee wax laga maqlayaa intay tagaan maamulkaas inaanu dib u noqon oo aanu burburin xal ka gaaraan
dawladda haday wax xirto oo airport xirto annagayba xiri jirtay tii ka horeysay anna waxba ka hadlay haddaydu marka dan u aragto waxay la tahay mandate-ka waxa iskala dawladda waa lagu dhaliilayaa dabcan waxay halayso waa saxanta amalihi waxay halayso waa lagu xisaabtamaa laakiin maxay u sameyn kartaa qof dhig kartaa ma jirto amba kula dagaalami kartaa waxa kale oo rabaa kelmad oo waxaan soo marnay waxaan joognaa hotel dhowr milyan ganacsi Soomaaliyeed ku maal gashay meeshaan hadda aan joogno fadhinaa waxaan xusuustaa iyadoo qashin qob ah xaqiiqatan maanta hotel $5 million ganacsi ku maal gashay ku yaala maxaan ku gaarnay dawladnimaan ku gaar waa inaan wada ilaashanaa dawlad mas'uuliye shacab dawladnimada gorgortan ma gasho meeshaan ka nimid waa isnaqaana reer Muqdisho aan nahay kelmadaha marka aad moodo qaarkood inay u turjumayaan in oo haddii sidaan raba la yeelayo waxaan wax kastaan soo bixi qof wax kasta soo bixi kartaa ma jirto dawladnimada qof wax kasta rabto ka soo bixi kartaa ma jirto dawladnimadu waa la wada leeyahay waana naga wada dhaxaysa haddii farmaajo iyo khayre aniga way taqaanaan 3 sano jiraan waligay ma taageerin oo yaani ma dhihin waa saxan yihiin sidii ku saxan yihiin waxay qalad yihiin aan sheegi jiray waxay ku saxan yihiin halna waa uga mahad celinaya xaqiiqatan ma baqarsanayaba in hawada Soomaaliya hal meel laga maamulo in hawada Soomaaliya gacanta loo galsho waxaan ugu hambaleynayaa strong dawladda hadda jirtaan ugu hambaleynayaa ma aadi karo gobolada Nakuru iyo Bombaaso ma aadi karo iyadoo Nairobi ogeyn marka mother tongue-ga Jowhar amba maxuu ahayto magaalooyinka kale Soomaalida markaan aadayo in la yiraahdo Muqdisho Soomar waa wax caalamka oo dhan isticmaalo waa waxaan ku faano waxaan ka naxama haddii qalad la igu diido gobol Soomaaliyeed waa khalad la igu diiday waana ka dacoona abeelan ka ahay waa ka dacoona waa ka qaylna waa ka dagaalama laakiin ma dhibsanayo in la yiraahdo diyaaradda adiga aad raacayso waa inay taawarka Muqdisho wargeliso yes waa wax caalamka oo dhan ka dhaxay waxa la isku qaldaaho madaxdu sheegan federal system inuu yahay federalka aan fahamno federalku ma aha siyaasadda wadanka iyo qarannimadu federal ma aha ee adeega federal waxa federalka waa service ayaa waxa la geenayaa gobolada iyo degmooyinka laakiin dalka sida laga yeelay siyaasaddiisa markasta madaxda joogta caasimadda sida dastuurku qaba looga dhageysanayo waxa soo haray aragtida doorashooyinka Soomaaliya waxay ku heshiisay 4 sano kasta doorasho ma qabto xisbi aan la gudoomiye ka ahay oo leenahay anagoo badan oo Soomaaliya isu tagtay ah waxaan u dhisnaa wadankan aan hogaamino way haddaan doorasho dhacan waxaan xisbi ka leenahay waxaan dawladda hadda jirtana waxaan ka soogeynaa clearly inay sheegto doorashada iyo habkii loo aadayo 2021 marka ayadana gorgorta kuma jirto waxaan rabnaa wadanka doorasho xor inay ka dhacdo shalay doorasho dhacday madaxda shalay hadalkooda waxay ku jirtay waan wareejinay sax way wareejiyeen doorasho dhacday laakiin doorashadii lama gaarin ayaguna ha sugaano xilligan ba ay la wareegi lahayn bacad kale la wareegi lahayd inta ay qolada hadda joogtana waxaan uga fadhinaa inay soo diyaariso qaabka doorashada marka nuxurka hadalkayga waxaan rabaa inaan isku soo aruuriyo qof kulama dagaashanay fikirkayga qofna kuma taageersan madaxweynaha hore kulama dagaashanay madaxweyne cusub kuma taageersan laakiin constitution-ka yar naga dhaxeeyahay wuxuu awood siinayaa wadanka inay maamusho dawladda markaas joogto si buuxda waxaan u leeyahay madaxda qaranka hadda joogta iyo madaxda horeba aan wada ilaashano dawladnimada naga dhaxaysa ee aad shalay ahayd ee aad bari rabto hadana inaad noqoto kiiska Kismaayo waxaan u aragnaa doorashadiisa sidaas ma lihin maamul Soomaaliyeed oo jiro waha hal xaliyaan leena wixii barbalema hojir yaan la siyaasadayn dii xaflad jirto muwaadiniintu inay aadaan xaq u leeyihiin haddii dawladdu tiraahdo waxaasan ka qabnaana dawladda wadanka ayada ah marka waxaan leenahay arinta Kismaayo waa arin gaar ah arin siyaasad u baahan maaha arrin madaxweynaha hore qusayso gaar maaha arrin shacabka Soomaaliyeed oo dhan wada og yahay anoo wada leeyahay anoo shacab Soomaaliyeed ka wada dhaxayso ee maamul Soomaaliyeed in laga dhigo marka issue gaar ma qabaan waxaan qabaa in ahla xal wal aqd inay dhax galaan ama Kismaayo ha joogaan ama kuwa xamar jooga ha aadaan in arinta wixii khilaafaad oo jiro guud ahaan Soomaalida la xaliyo